سيد علي ان اديك رفعان كسو قاد سما حكم محكمه ها مدن قدومي اوكي sababta ugu qanci weysay rafcaan kuga soo qaadatay maxkamadda ma sheegi kartaa oo sheegi karaan haye sababta xukunkan rafcaan uga soo qaatay mudane gudoomiye waxay tahay in lagu xadgudbay anoo dhibana ah dhibka la isku dul saaray oo lagu magacaabay in ay dilaa xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay taasna ay ahayn mid aan jirin ku celi maxaad tiri waxa anigii in aan barafka hoos u dhig in lagu been abuurtay awgeeda xukunkan rafcaan mudane gudoomiye uga qaatay xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay ma jiro waxa lagu tilmaamay in xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay sida awgeed oo qof maxay ahayd lagu magacaabay qof dilaa ah dambigiina aan geysan sidaas rafcaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday in cadaalad helo sidee wuxuu dhacay marka ma sheegi kartaa way idin sheegi karaa mudane gudoomiye falkan ma waxaan kaaga ramaa sidii intee kaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacay subaxeedii miyaan kaga bilaabaa mudane gudoomiye se isla waqtigii dhibka oo dhacay adiga soo waragtid noo sheeg horta mudane gudoomiye dhibkan waa dhacay waana waxa ogahay Soomaalina ay og tahay dab inuu guriga ka kacay xaaskigana dib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilay ama dabka ku shiday uu gubay waxaan waxay ku dhaceen sikadiisa oo lama filaana dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyay labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna lagu waday ilaa sanka waa ka gubtay gudaha waa ka gubtay dhibkayga mudane gudoomiye qof soo fiirisay malaha kaliya waxa lagu mashquulay dhankii kale waxaan lagu magacaabay qof dilaa ah anigiyo dadaalayo oo wax walbana maxay ahayd ka gubanay abukate si waafaqsan qodobka